qalbigaha federaaleynin qalbiga Soomaaliyeed hadduu federaaloobo wuxuu noqdaa qalbi ciriiri ah qalbigana hadduu ciriiri noqdo dhulka ayaa ciriiri noqonaya dhulka ayaa wuxuu noqonayaa tii Soomaalida ay dhihi jirtay harag sagaara iga kac mooye iga durug ma leh dhulka Soomaaliyeedna waa dhul aad u baaxad weyn oo ku filan boqol jibaar inta hadda ku nool Soomaalidana waxay tiraahdaa dhulka nin nool iyo nin dhintayba wuu deeqaa runtii dhib ma lahan in degaan waliba uu dheri gooni ah uu saarto uu arrimihiisa gudaha u adeego laakiin waxaa dhib weyn ah markii dheriga qaranka ah ee arrimaha dibadda dhex lagu dhaafo marka waxaa naga waana ah in aad qalbigiina qaramaysaan qalbiga waa meesha kaliya oo si xur ah aad ugu dareemi kartaan Soomaali weynimada tusaale ahaan waxaa jirto dalka Nigeria ayaa waxay sameeyeen in qof walba uu qalbigiisa federaaleeyay taasna waxay aad u khasaaro weyn u gaarsiisay dhaqaalihii dalka iyo horumarka dalka laakiin hadda waxay bilaabeen inay qalbigoodii qarameeyaan ay dhulkana federaaleeyaan taas ayaa waxa u horseeday inay dhadhamiyaan horumar dhaqaale iyo horumar siyaasadeed hadda markii ay waqti badan dhumiyeen marka walaalayaal aan qalbigeena qaramayno insha Allahu tacaala aan ku dhaqanno hal qabsigii ahaa haddaadan indhaha iska arki karina bal isgarab socda aan isu garab socono danta guud ee daryeelka dalkeena hadduu ilaahay yiraahdo بارك الله فيكم وولالكين بازي بسوري كلسن TV عدك شعبك سوماليات داوشوا عن جزاكم الله خيرا